سواء كحنا هذه أو كحنا هاي إن أنت البوليس يعني شغال نفسك الواي نظام كواحد لوني البوليس هنا بالكلية نظام هو بربراي وحوار كنا مركا وحويه أنا وحوار كنا سنة تاج والبوليس ومسميه فروا هذا الله وحمده نكا بوليس كايستا نسكو عليه كلامها نبتكليه iyo magalaan saayay nidaamka dalka lagu aamin kara ma maanta way cadaatay in booliiska anaga ilaalinayay oo maanta nidaamkii laga qadilay waxa uu jeclahay inaan ka hadlo maanta waxa loo socdaa waxa weeye waa nidaam waxaan sameynaa baarlamaankii waxaan dooranaya deegaanka madaxweynuhu shalay tamarku hadlayay wuxuu sheegay iyo dalaatay ahayd noo jaare inaan madaxweynaha bada ku sheegay bada waxaan ka xumay madaxweynaha kelmadda uma odhan malaa uu igu riyoodaan leeyahay kelmadda ma odhan laakiin waxaan la yaabay miidiyaha oo sheegaya cabashadu iga cabtooyini badow igu sheegay gudoomiyuhu oo soo dhigin kilibkii anigu aan ku sheegay inuu badow yahay markuu qof kelmad ka cawdo waxa la soo dhiga tuka cawdo la soo saaraa halaa iluguna way u riyootamoonaya miidiyuhuna isku riyahay damoonaya madaxweynaha laakiin ma odhan maanta waxay leedahay walaalayaal 2017 halkan baan ka hadlay maalintii ugu dambaysay ee kaambeynka waxaan ku taliyay wargacantiina ku cilbaxa war maanta saddexdaan musharax ee u taagan madaxweynaha qaranka midka sabarka koorkiisa iyo taariikhdiisa akhriya war fartiina ha eersanina ee fartiina ku cilbaxa baa baydu yeelin way kan maanta le fartiyadii eernay maanta waxaan leeyahay war baarlamaan wanaagsan waan idin soo xulay dhalinyarada maanta ku barbaartay intii Soomaaliyeed madaxa banaaneed baan soo saarnay waxay la hortagayaan Soomaaliya nimanka inay hor taagan waxa weeye dadkii ku barbaaray kacaankii ku barbaaray inaguna wax hadda diyaar gareynay kuwii ku barbaaray madaxbanaanada Soomaaliland oo kacaan iyo muqdisho iyo waxa weligoona maqal kuwaas ka horgeynina walaalayaal waxa weeye marka saddexda xusbiba waxa ka sharaxan dadkeedii laakiin waxa ku kala dooranaysaa wanaaga iyo diintooda iyo amaanka iyo iimaankooda ku dooranaysa walaalayaal 18 bisha waxaan soo saaray sanadguuradii soddonaad warqad baan soo saaray bosishiga Soomaaliya ay ka taageerta wadahadalada Soomaaliya walaalayaal waxaan rabnaa in Soomaaliya wadahadalada la joojiyo halka qalad baynu waheed way ka faa'iideysay Soomaaliya wadahadaladeeni inagana khasaaro inoo keentay waxayna sharciyeynay nidaam iyo dawlad aan shirin baan adduunka sharciyeynay iyadoo way ka faa'iideysay wixii heshiis la galay Sheekh Shariif iyo Xasan wixii way baabiyeen dawladda inka joogtay xamar ee farmaajo ka madaxda yahay 3 kiiloomitir xukunta wixii inoo way joogtay marka waxaan soo jeedinaa baarlamaanka cusub markuu yimaado insha Allah taala ajendaha waxaan ku horeeyaa waxa weeye laba qodob baa weeye inaynu hadalka joojino wada hadalka Soomaaliya oo aynu adduunka la macaamilayno iyo in distoorka la furo oo la adeego wixii naga xumaaday inta bilownay aan dib u eegno hadii ay waxaan doonayaa walaalayaal insha Allah taala dalkeenu maanta chance fiican u haystaa chance-kii oo iska lumiyay 29kii hadii dalkan xoreynay inagoo adduunka inoo soo jeedo ayaynu inagu habar keenaya marka waxaan leenahay maanta wada inoo soo jeedaa khayraadkii baa batay wadiyaartay dekada imaka DB weera la furi doono bisha June iyo wadada karidoorka la yiraaho kan wajaari karidoor labadaba aanu gacan baan ka geystay labadii magaalada say qaatay gacan baan ka geystay Soomaaliland dagaalada Soomaaliya nabad baan ka geystay waxaan weydiinaynaa hoosta in qaarka u jirtay Soomaaliland wuxuu ka qabtay madaxweyne Muuse ayaan sheegaynaa qabyaalad kama hadlo qabyaaladda
waxaan u dhaafnay oo ku tartami jiray Ibrahim Muuse bixa ku xajeekay ku tartami jiray anigu waxaan la hadlaa waxaan ka hadlaa mawduucan ka hadlaa siyaasaddan ka hadlaa cadawga sheeyahan la hadlaa marna anigu loo kama noqdo waligayga ilaahay loo kama noqon marka taasna ogaada walaa guul baan idin rajaynayaa reer Maroodi Jeexow dhalinyartaan soo xulnay ee deegaan iyo xildhibaan baleba walaalka u hiiliya oo Soomaaliya u hiiliya oo qaranka u hiiliya oo ikraamka u hiiliya oo barwaaqada u hiiliya oo nabad u hiiliya wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh